kusoo dhawaada dhextaal restaurant and cafe oo ku taala magaalada Garowe. goobtan ganacsi oo lagu magacaabo dhextaal waxaa gudaha magaalada Garowe ka hirgeliyay 3 dhalinyaro ah oo hadafkooda ganacsi gundhiga uga dhigay inay ka damqadeen dhibka haysta shacabka Soomaaliyeed ee dhinaca cuntada. kusoo dhawaada daafurka shirkadda cuntooyinka ee dhextaal oo aynu maanta ka daafurayno magaalada Garowe caasimadda Puntland. maamulaha goobtan abwaan Sadaam Cali Cabdiraxmaan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sheegay in cilmi baaris uu sameeyay waqtigii jaamacadda uu ku ogaaday in Soomaalidu ay dhibaato ka haysato isticmaalka cunto dhameystiran isla markaana dheelitiran taasoo sabab u noqotay xanuunada qaybtood. aanu sii gudba daraasada boqolkiiba 12 dadkan wareystay waxay qabeen wax la yiraahdo dhiikar, boqolkiiba 6na waxay qabeen sonkor, boqolkiiba 2na waxay qabeen inta kale waxa la yiraahdo pulmonary disease ka sambabada ku dhaca, heart ka wadnaha ku dhaca, maxaan ku raada kaliyaha ay isugu jireen iyo asmada ay waxaanu la leeyahay de boardkii baa jira, managerkii baa jira, admin financing baa jira, cashier-kii baa jira, waxaasoo dhan baa jira. waxa cajiib ka noqotay dhextaal waxay noqotay meeshii cunto ee ugu horeysay ee shaqadeeda soo xayeysiisa. qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha oo isugu jiray bulshada qaybaheeda kala duwan waxay soo dhaweeyeen meheradan iyagoo sheegay inay tahay mid la jaanqaadaysa caalamka halka kuwa kale ay ka heleen dalabyadii lagu soo bandhigay goobta iyo cuntooyinkii lagu sameeyay meherada. runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka munaasabadan qiimaha badan ee soo kordhinaysa nolosha iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo in la soo raro aqoon ka maqan dalka gudihiisa oo lagu dabaqo dalka dadkeenu ay ka faa'iideystaan. makhaayaddan iyo leadership horta xagee iska galayaan bal isgalin karaa leadership iyo makhaayad haye seesku galina xagee way maaragtaa xagee ku kulansiinaa hal abuurka hogaamiyuhu waxa weeye hal abuur bilayo soo maaha hal abuurkaas kow hogaamiyuhu wuxuu shaqeeyaa ummadiisa soo maaha. aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo dhalinyaradan saaxiibaday oo aan ka mid ahay inta badan anigu odayaashana ugu yarahay dhalinyaradana ugu weynahay marka aad bay farxad gelinaysaa. dhextaal dadkoo dhan bay u dhaxaysaa waana la wadaagaa waxaanu noqon doonaa kuwa mar walba yimaada waqtiga ku qaata wax ku akhrista. qorshahan dad badan waxay u arkaan inay horumar soo siyaadinayso isla markaana ay qayb ka qaadanayso yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale kobaca dhaqaalaha. meheradan waxaa qayb ka mid ah la dhigay buugaag loogu talagalay in dadka imaanaya ay akhristaan taasoo ay ka heleen qayb ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay munaasabadii lagu daafurayay. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay furitaanka la furay meherada dhextaal oo runtii la dhigi karo waxyaabo cusub oo aan bulshada reer Garowe aysan aqoon bay ku soo kordhisay oo ah wax akhriska oo ah waxyaabo aadka u yar sida waxyaabaha jiraayada oo kale in laga helo laga waayo goobahan aan jirin tan waxay soo kordhisay in la heli karo buugaag nooc walba ah salaam buugan oo kale cuntada iyo sameynteeda iyo waxyaabaha ka samaysan tahay iyo sida loo ilaaliyo iyo waxaas ku qoran yahay xataa ana aqoon baan intaan shaaha cabayo awood yeelanaya inaan akhristo oo wax badan ka fahmo. dadka cuntada karinaya qaybtooda waxay haystaan shahaado jaamacadeed waxaa ka mid ah gabadhan oo iga waramaysa waxay kaga duwan tahay meheradan kuwii hore uga jiray magaalada Garowe. laakiin meherad ma tahay ma waa ina laga helaa waxyaabo aad kaga duwan tahay meheradaha kale sida cunto caafimaad leh, cunto isku dheelitiran, waxyaabo soo jiidasho leh sida xalwiyaadkii oo kale dalabaadkii xalfadihii wax hadana balance oo hagaagsan in laga heli karo insha Allah. sidoo kale waxaa jira dad ajnabi ah oo qaybtooda ay ka yimaadeen wadanka Yemen kuwaas oo takhasus u haysta cuntooyinka lagu sameeyo dhextaal. مطعم دحتل أعمل شيف في معلم يوجد هنا في المطعم شاورما وبيتزا وكذلك بطاطس وهمبرجر
ويوجد أيضا دجاج مندي ولحم مندي ومضبي وحنيذ وأرز برياني وأرز مندي وأرز عيدي.